iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay sare u kacaysa hanaanka waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxaysay carqabadaha baahsan ee ardayda wax ka barata gobolada ka baxsan caasimadda Hargeysa ay kala kulmayeen xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland kuwaas oo ardayda gobolada kala duwan uga yimaada sidii ay u soo qaadan lahaayeen shahaadooyinkoodii hase yeeshee ay shaqaalihii xafiiska imtixaanaadka kala kulmayeen dhibaatooyin fara badan oo xanibaya wixii xaqa iyo xuquuqda u lahaa ee uu socdaalka u soo galay taasoo ah shahaadadiisii. haddaba maruu telefishinka caalamiga ee Somaliland Space Channel u kuurgalay inuu wax ka ogaado carqabadahaasi ayaa waxaanu afaafka hore ee xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland kula kulanay qaar ka mid ah ardayda masaafada fog u soo galay sidii ay u soo qaadan lahaadeen shahaadooyinkoodii. ugu horreynna waxaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan bal sida ay wax u dhaceen. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Siciid Cabdiraxmaan Cali, waxaan ka imi magaalada Ceerigaabo gobolka Sanaag. waxaan soo doontay shahaadadii dugsiyada sare, waxaan ardayda ka baxday 2015-2016 ilaa xilligaana xafiiska imtixaanaadka kama hayo shahaadadeedii. mas'uuliyiintu inta maalin kasta way soo celiyaan markii nala ballamaan, haddana xafiiska waa ka weynaa, marka dhibaato aad u baan baa wallahi haystaan ardaydii dhawaan qalin jabisay. marka waxaad ka dhawaajisay in ay dhibaatooyin fara badan ka haysato xafiiska imtixaanaadka qaranka, marka ma waxa jirta mas'uuliyiin gaar ah mise shaqaalaha meeshuunba cabashada leh? shaqaalaha meesha ayaa cabashadaas aanu ka tabananaa, weliba aad u cambaaraynana haddaan nahay ardaydii dugsiyada sare dhammaysay. marka maxaad dhaliisha aad u soo jeedinayso ama fariinta aad u dirayso bulshada reer Ceerigaabo iyo tan qarankaba maxay tahay? bulshada reer Ceerigaabo waxaan kula talin lahaa dadka ay shahaadooyinkooda iyo ardayda ay u dhiibanayaan ee ay kala xisaabtamayaan dad ay hubaan ha noqoto sida annaga nagu dhacday si aysan dib ugu dhicin. qarankana waxaan u sheegayaa in shaqaale wanaagsan oo shaqaynaya oo nidaamkii loo dirsaday iyo nidaamkii xafiisku ahaa ku shaqaynaya in xafiiska la geeyo sidana wax laga bedelo. waa tahay miyaan ahayn maadaama aad meel fogna uga timi shahaadooyinkiina aydan haysanin in maamulka degmada iyo kan gobolka Sanaag in iyaga ay idin damaanad qaadaan si shahaadooyinkiina ay idinka soo qaadaan maadaama aad carqalad weyn kala kulmaysaan markaad timaadaan caasimadda Hargeysa? maamulkii gobolka Sanaag iyo xafiisku iyaga wada xidhiidhay, kadibna wixii arday ahaa xafiiska lagu soo wareejinayay. xafiiska markaanu nimina si xun baa loola dhaqmay, shaqaalihii wayna soo dhaweyn waayeen. wax haddii allaba kuu roon yahay information nama siin iyo warbixina ilaa iminkadaana shahaadadii meel ay ku sugan tahay ma naqaano, haddaan jaamacad ku geli lahayn iyo haddaan scholarship ku dooran lahayn. magacaygu waa Mustafa Xasan Cabdulaahi, waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan ka baxday dugsiga sare Sheekh Bashiir ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waxaan ku suganahay Hargeysa muddo ku dhow 2 bilood iyo badh. muddada dheer waxaan u xabiilanahay shahaadadeedii dugsiga sare ee loo yaqaan secondary-ga oo wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka ay muddo imika 2 bilood ku dhow soo celcelinayeen. ha iska haato adduunyada waa iska dhib badan tahay, maalinba maalin way la mid, laakiin maalmihii aniga igu yaabka badnaa ee wasaaradda intii aan ku soo noqonayay igu yaabka badneed waxa ahayd maalin dhaweed oo aan tagay oo aan hawshaydii aan watay sida shahaadadeeda u qaato baa waxaan meeshii ugu tagay ilaaladii wasaaradda imtixaanaadka ama xafiiska imtixaanaadka. waa askarigii bodyguard-ka ay qorigeysatay. maxaa doonaysaa bay igu yiri shaqaalimay baan kuma jooga baan ku yiri, waxay igu yiraahdeen anaga ku shaqaynayna. alxamdulillah aad baan la yaabay, waa arintii nolosheeda ugu yaabka badneyd. bodyguard xafiis ilaalinaya oo halku maanta cadowga ka ilaalin lahaa isagii wax qoraya oo xafiiska la isku doomaraya daase way tukaan bay noqoteen. marka ma waxaad leedahay foomkii aan buuxinayay waxa iga buuxiyo oo cadeynaysa inuu askari ka buuxiyay? askari baa iga buuxiyay. marka xafiiska imtixaanaad wuxuu noqday tukaan ninba ninkuu doono uu qorayo, ninba ninka uu doono maalin kaga seegay hore hebel halkan ka soo noqonaya ii siyaag. 2 biloodna weli wax aan helay ma jirto. intaasi kadib waxaanu arrintan wax ka weydiinay Cabdiwahaab Ismaaciil Yaasiin, xogayaha guud ee ururka horumarinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada Sogda, bal sida uu arko arrintani.
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waxaan u aragnaa anagu inay tahay ayaan daro arday gobolada kale uga yimiin shahaadooyinkoodii qaataan isla markaana kala kulmay carqalado fara badan xafiiska imtixaanaadka qaranka iyadoo lagula kacayo tacadiyo fara badan. anagoo arinta walaac baan ka muujinaynaa runtii waxaananu cambaareynaa shaqaale hoosaadka iyo waliba maaragtay cid kasta oo ka howlgasha xafiiska imtixaanaadka qaranka. waa tahay cabdi wahaab idinku sugda ahaan waxaad dhiirigelin ballaaran u fidisaan dhalinyarada marka arrintan miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhalinyaradii aada idinku dhiirigelinayseen? wallaahi way ku yeelanaysaa. anagu horta sugda ahaan waxaanu dhiirigelinaynaa inaanu ardaydan shaqo la-aantu haysato inaanu shaqo maaragtay ku habboon si cadaalada xor iyo xalaal ee ku jirto aanu la raadino isla markaasina ay helaan maaragtay boosaskii ku habboonaa. anagu sugda ahaan intii karaankayga waanu ka qaadanaynaa inaanu ardayda la tacaalno. waa tahay markaa ma u malaynaysaa in wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdilaahi habane iyo daawud ay ka warqabaan arrintan mise wuxuunbay khusaysaa shaqaale hoosaadka ka howlgala xafiiska imtixaanaadka? anigu run ahaantii horta sidaan qabo uma maleynayo inuu wasiirka waxbarashada cabdilaahi habane iyo weliba gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka daawud galweyne oo arrintan wax ka ogyihiin, laakiin arrintan waxay khusaysaa ay ku dhex wareegaysaa shaqaale hoosaadka isla markaasina hoos maadaama ka shaqeeya xafiiska imtixaanaadka qaranka mas-uuliyiinta sare wasaaradda iyo weliba mas-uuliyiinta sare xafiiska imtixaanaadka qaranku ilama aha xaqiiqduna waxay tahay inaanay waxba ka ogeyn arrinta iyada. waa tahay maxay tahay fariinta aad u dirayso maamulka sare imtixaanaadka qaranka si ay wax uga qabtaan shaqaale hoosaadkan sida nidaamka daran ula dhaqmaya ardaydii 12 sano wax soo baranayay ee loo diidan yahay wixii xaqda iyo xuquuqda ay u lahaayeen amaba la celcelinayaba? runtii horta aniga waxaan xaggan farin adag aan uga dirayaa dhammaan maamulka sare uu kow ka yahay wasiirka waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka dhammaantood waxaan ku wargelinayaa waan ku dhiirigelinayaa inay hoos u eegaan xaaladda ay ku sugeen shaqaale hoosaadka hoos yimaada iyo falalka ay kula kacayaan muwaadiniinta reer Somaliland gaar ahaan ardaydaasoo kala kulanta tacadiyo fara badan aniga ku hadlaya afka dhalinyarada sugda. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa la gudboon xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland si ay wax uga qabtaan arrintan isla markaana u soo xushaan shaqaale u jajaban ardayda kala duwan ee uga imanaya gobolada dalka? waa Maxamed Andar, telefishinka caalamiga ee Somaliland Space Channel, magaalada Hargeysa.